noloshaada hal mid xusuusnow qofkii aad rabtay inaad heshid haddaad heshay farxadaada ka hormari farxadeeda si niyad ah hambalyo my brother lucky boy family qurux badan insha Allah qof inuu ka fogaado way dhib badan tahay xanuunkeedana leedahay waxa laga yaabaa inaad ka xumaatid laakiin taas maxaa ka xun ma taqaana qof noocaas oo kale ah oo aan noloshaadaba u qalmin inaad la sii noolaato peace and love waxaan u malayn jiray waayitaankaad weynaysid qofaad jeceshahay inay aad u xanuun badan tahay laakiin waxaan ogaaday inay kasii xanuun badan tahay inaad weysid naftaada qiimaheeda iyo farxadeeda qof kasta saaxiibka ha ahaado qofna yuusan best friend-kaaga noqon sababtoo ah best friend-kaaga hadduu ku dhaawaco habeenna ma seexanaysid laakiin qofka saaxiibkaaga ah bis hadduu ku dhaawaco qof iska hadlay oo keliya ka soo qaadaysa aabbo howshaada wada dad badan oo daacadihi nasiib uma yeelan inay helaan jacayl daacada iyagoo ah kuwa qalbigoogu yahay qalbi daacada saaxiibkay markaad dhibaataynaysid kadibna anigu aanan kuu jawaabayn maaha micnaheedu inaan daciifayo oo kaa baqayo balse waxaad ogaataa xataa in yaroo ihtimaamay inaanad u qalmaynin inaan ku siiyo xaaladda aan hadda ku jiro waa mid adag oo murugo badan balse dulqaadka iyo sabirka aan sabraya haddaan ku guulaysto waxaan ballan qaadayaa inaan dadka oo dhan sidii cashirkii aan u baro sida loo sabro loona dulqaato kama helo maalinka koowaad ee aad qofka isbaranaysaan waxaa soo muuqanaya dareenkiisa iyo doonistiisa laakiin maalinkaa kala tegaysaan waxaa soo muuqanaya qof walba iyo akhlaaqdiisa waxaad maqashay dad le qofka qiimihiisa waxaad ogaataa markuu kaa tago balse waxaa jira qof aad ogaanaysid markuu kaa tago inaad adigu qiimo leedahay nolosha hal midayna bartay saaxiib samayso ama jacayl samayso laakiin midnaha ku kalsoonaan jacaylkayga waa weligiid miga tegay saaxiibkay waaye weligiis miga tagay baaba ciyaartaa ku jirta ka bax uma baahnid inaad noqoto midka ugu wanaagsan ugu waxqabadka wacan si aad u bilowdo waxa aad doonayso balse waxaad u baahan tahay inaad bilowdo si aad u noqoto midka ugu wanaagsan qofka aad u sheegato hal sir oo taada ah waxaad siisay waran uu kugu mudo maalin maalmaha ka mid ah sirtaada cidnaha la wada bini aadamka qaar xaaladda aaday ugu adkaataa xataa hadduu isku dayo inuu wax sameeyo ma samayn karo waa fahmi karaa saaxiib ma fahmi kartid adiga maxaa qof kaloo fahmi kara xataa ma jiro qofka markaas xaaladdaas maraya bisaa fahmi karo haddii ay gabari laabtaada soo magan gasho ha moodin in ay doonayso inay laabtaada ku raaxaysato ee balse ogow inay gabadhaasu doonayso inay ka hesho laabtaada naxariis xushmad iyo qadarin aan dhammaad lahayn aaday u xanuun badan tahay marka aad dareento inuu ku dhibsanayo qalbiga qof halkaad adiguna u ordaysay farxadgelinta qalbigaasi oo keliya dadka aniga ka helin iyo dadka aniga iga helin dadka aniga ka helin iyo dadka aniga iga helin kuwa ka helaan xataa aniga marnaba kama helo waa run oo ma awoodno inaynu aragno boosaska aynu ku leenahay qalbiyada dadka kale balse waxaynu awoodnaa inaynu ka dareenno ficiladooda markaynu la joogno sababta aanan u jeclayn inaan aarsado ma taqaanaa diyaar uma yihin noloshayda inaan daba socdo ii qaniinay sidii aniguna aan u qaniini lahaa laba ka mida nimanka laguma tilmaami karayo inay rag yihiin kow ka dhaqaajiyey hooyadii isaga oo raba inuu la raaxaysto gabadhiisa sidoo kalena ka sheekeeyey gabadh aamintay oo waxa weeyaan ku kalsoonaatay xiriirkii ka dhaxeeyey qof haddii aad u jeclaato si indhala'aana aanad saarto darajada ugu sarraysa noloshaada laba natiijo unbaa kuu soo baxa ama qofkii noloshaadaoo dhan ku kaafiyi lahaa ama cashirkii noloshaadaoo dhan ku hagi lahaa haddiiba aad rabto nolol qurux badan iyo nolol guul leh qurxi salaadahaaga si ilaahay u qurxiyo noloshaada gabadh aan adiga ahayn in aan la hadlo waxaan iskaga ilaaliyaa sida aan iskaga ilaaliyo wakhtiga aan soomanahay ee aan weysiisanayo in ay biyaha aan ku luqluqanaya uga baxsadaan adiga bisaa kugu talagalay soonkayga ugu horeeya ilaa soonkayga ugu dambeeya suxuurtayda ilaa afurkayga salaada subax ilaa salaada cisha waxaa ii tahay ducadeyda ugu horeyso iyo ducadeyda igu dambayso
haddii aad aragto qof kelinimada jecel ogow in uu dhabarka ku qaaday culays ka badan intii uu karayay. qofaa wuxuu i weydiiyey maxaa keli u tahay, anigana waxaan dhahay qalbigan dhaawac badan wuu ka daalay, buuqa badan jawiga deganaan ka jeclahay.